رمضان كريم sidoo kale maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada Yurub ugu caansan sidoo kale wararkii u dambeeyay sportska fadlan hadii aad tahay daawadana ugu cusub fadlan subscribe dhig channelkayga like share comment ka marna ayna ku bilaawno wararkii u dambeeyay daaqada kala wareega inkastoo xiran yahay suuqa iibka ciyaartoyda la filayo in horaanta bisha June uu furmo hadana kooxo waaweyn ayaa waxay ku howlan yihiin sidii ciyaartoydu ay doonayaan ugu sii dhaadhicin lahaayeen heshiisyadooda la sii galaan qandaraas hordhaca warbaahinta adduunka ayaa waxay si taxanaha u soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay ee suuqa xagaagan ayna ku bilawnay daafaca kooxda Napoli ee xulka qaranka Senegal ee Kalidou Koulibaly oo 28 jir ayaa si la yaab leh ugu soo baxay liiska ciyaartoyda ee ugu bartay wada hadal ah la yeelato wariyahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang oo 30 jir ah dhiirinaya inuu ka baxayo Emirates waxaana xiiseynaya kooxaha Manchester United, Inter Milan, Barcelona iyo Real Madrid iyo Chelsea sidii ay warisay Mirror golhayaha Manchester United David De Gea ayaa sheegay in damaciisu uu yahay inuu sii joogo garoonka Old Trafford sanado badan laakiin 29 jirkan ayaa la kulmaya tartan booskiisa ah iyadoo uu ka soo laabanayo United golhaya 23 jir ah Dean Henderson oo amaah ugu maqnaa kooxda Sheffield United sida ay warisay Mail wakiilka Neymar ee Wenger Ribeiro ayaa sheegay in xidiga reer Brazil ee Paris Saint-Germain oo 28 jir ah uu doonayo inuu ku biiro Chelsea markii da'diisa ay 17 sano jir Chelsea waxay dhibaato kala kulmaysaa bartilmaameedii ku jirtay golhayaha Ajax ee Andre Onana sababtuna waa in 24 jirkan reer Cameroon uu doonayo inuu ku laabto Barcelona sida ay warisay Express qadka dhexe ee reer Nigeria ee Wilfred Ndidi oo 23 jir ah ayaa ku adkaystay inuu sii joogo Leicester City kadib markii uu soo baxeen xiisaha ay uga imaanaya kooxaha Arsenal iyo Manchester United kooxda Arsenal ayaa la soo xiganaya inay soo gashay tartanka loogu jiro garabka weerarka ee Chelsea ee William Bragas kaasoo suuqa soo socdo si lacag kala seexan karto isla markaana hore loo xiriirinaya kooxaha ay ka mid tahay Liverpool William ayaa isaga shakhsiyan doonaya inuu sii joogo Chelsea laakiin waxa uu doonaya inuu soo heshiis hal sano in ka badan iyadoo aysan kooxuhu sidaas doonayn waxaana halka ay fursad ka helaysaa Arsenal sida lagu sheegayo wargeyska ESPN saxafi George Nicola ayaa ka howlgalay The ESPN ayaa si weyn u farxiyay jamaahiirta Gunners isagoo sheegay in kooxdooda ay tahay kooxda waqti xaadirkan ay ugu horeysa loolanka 30 sano jirka ee reer Brazil balse uu tartan wali uu furan yahay Arsenal ayaa wax yar ka haraysa maanta laakiin wax kasta way furan yihiin ayuu yiri saxafi George Nicola oo ka warbixiyay xaaladii ugu dambeysay ee William Arsenal oo isagu tageen laba dhibaato ah in xil ciyaareedka dambe sii karayaan UEFA Champions League iyo dhaqaaqa ahaan saameyn xun ku yeeshay cudurka coronavirus oo dunida gilgalay ayaa doonaya inay la soo saacato ciyaartoy jaban ama bilaash ah arrinka kale oo dooqa William u badi karta dhinaca Arsenal ayaa doonaya inay sii joogto caasimadda London halka uu nolosheeda la soo qaybsaday kuna noolaan karo muddo 7 sano ah si la mid ah Liverpool waxaan meesha ka maqnayn kooxda Arsenal oo ay jaarka yihiin ee kooxda Tottenham laakiin rabitaanka Arteta ee ah inuu dhowr sano heshiisa saxiixan karo William ayaa furo muhiim u noqon karta inay kaga horeeyaan kooxdaasi ugu dambeyntii waxa sidoo kale jirta suurtagalnimo ay saameyn ku yeelan karto saaxiibtinimada ka dhaxaysa William iyo David Luiz oo hore uga ciyaarayeen kooxda Chelsea waqtina ka tirsan kooxda Arsenal ee Gunners kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa doonaysa inay gacanta ku dhigto laacib ka tirsan Real Madrid sidoo ugu bedelo mid ka mid ah xidigaheeda xagaaga marka uu furmo suuqa kale xiibsiga xagaagan uga dhaqaaqi karo Levan Kurzao oo daafaca bidix kaga ciyaara ayaa bisha June u dhamaan doona heshiiskiisa Paris Saint-Germain waxaana agaasimaha kooxda Leonardo calaamadaystay laacibka ka tirsan Real Madrid ee uu noqon karo mid ka buuxin doona booskaas sida laga soo xigtay RMC Sport Leonardo ayaa waxa uu heshiiskiisa u saaran yahay daafaca bidix ee Real Madrid ee Sergio Reguilon oo amaah ugu maqan Sevilla isla markaana ay booskiisa ka horeeyaan labada laacib ee Marcelo iyo Florent Mendy Reguilon ayaa la filayaa in sanadaha soo aadan ay heli doonin boos oo kaga ciyaaro ilaa uu meesha ka baxo Marcelo ama Florent Mendy taasina waxay fursad siinaysaa Paris Saint-Germain oo Real Madrid ku riixay karta inay iska iibiso daayarka lagu tilmaamo inuu mustaqbal weyn ku leeyahay kubadda cagta wararka ayaa sheegay in Leonardo uu ballan qaadi doono inuu boos joogto ah siin karo daayarkan oo ciyaara kooxda Sevilla
waa labada kooxood ee xidhiidhoodu aad u xumeyn isla markaana sanadihii ugu dambeeyay kala wareeganayeen Keylor Navas iyo Ariola ayaa waxaa kala rumaysan yahay in Los Blancos ay cirka geyn doonto qiimaha laacibkeeda oo dalban doonto ilaa 60 milyan. Regulan ayaa la kulmi doonin PSG waa Paris Saint-Germain xidigaha reer Spain ee Ander Herrera iyo Pablo Sarabia halka uu Keylor Navas isku waqti ku soo qaateen Real Madrid oo isaguna yahay goolahayaha koowaad ee Paris Saint-Germain. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in Real Madrid la xiriirinayo waryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe oo la rumaysan yahay in Zinedine Zidane uu bartilmaameed ka dhigan doono xagaaga dambe ee sanadka 2021. wararkii ugu dambeeyay aan ka helayna magaalada Turin ayaa sheegaya in Cristiano Ronaldo waryahanka Portugiiska ee kooxda Juventus uu sii joogi doono kooxda Juventus ilaa sanadka 2022. jasiiradda Tuttosport oo ka soo baxda dalka Talyaaniga ayaa waxay ku warimaysaa in ciyaaryahanka ugu faraxsan yahay kooxda isla markaana uusan doonayn inuu ka baxo. xidiga xulka qaranka Portugiiska ayaa ku biiray kooxda Juventus sanadkii 2018 haatan waxa uu muuqdaa inuu qorsheynayo inuu sii ciyaaro ugu yaraan 4 xil ciyaareed kooxda Juventus ilaa iyo haatan waxa uu u saftay 53 kulan oo Serie A ah isagoo u dhaliyay 42 gool. waxaa jiray warar xan oo sheegaya in horaantii bishan ay jirto suurtagalnimo uu dib ugu laaban karo laaxibka kooxdiisii hore ee Manchester United laakiin hadda uma badna inuu u dhaqaaqo haddii uu go'aansado in Ronaldo uu sii joogo Juve ilaa sanadka 2022 waxaa arki doonaa in isagoo 37 jir ah oo ku dheela magaalada Turin waa xitaa haddii uu jiro da'da 35 sano. Ronaldo wuxuu saxiixay 3 gool ah waxa uu dhaliyay 25 gool afarna caawiye ayuu ka ahaa 32 kulan oo ilaa haatan u saftay kooxdiisa. mar hore waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inuu noqdo tababare waqtigan la joogo wuxuu ciyaaryahan Juventus ah waliba u dhow cutubkiisa ugu dambeeyay ee Talyaaniga. kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqayso soo xirigelinta ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Rangers Eduardo Camavinga inkastoo kaliya uu 17 sano jirsaday bishii November ee la soo dhaafay. Camavinga wuxuu furo u ahaa naadigiisa Faransiiska intii lagu gujiri jiray xil ciyaareedkan 2019-2020 isagoo dhaliyay 1 gool isla markaana caawiye ka noqday 2 gool oo kale 36 kulan oo tartamada oo dhan. Real Madrid ayaa la rumaysan yahay inay ka go'an tahay inay la soo saxiixato xidiga heerka caalamiga xulka France xidigaha da'dooda ka hooseysa 22 sano jirka xil ciyaareedka 2021. si kastaba ha noqotee kooxda Rangers ayaa la sheegayaa inay sii haysan karto xidiga qadka dhexe ilaa xagaaga 2021 haddii ay ku guuleystaan inay xaqiijistaan booskooda Champions League xil ciyaareedka soo socda. inkastoo kooxda Zinedine Zidane ee Real Madrid loo arko kooxda ugu cadcad tartanka loogu jirto Camavinga haddaba RMC Sport ayaa sheegay in Manchester United sidoo kale ku dhowdahay inay la soo wareegto da'yarkan. Red Devils ayaa la filayaa inay u firfircoon tahay xagaaga inkastoo uu dilaacay cudurka coronavirus. sidoo kale waxaa dhawaan la xiriirinayay Edinson Cavani kaasoo qandaraaskiisa kooxda Paris Saint-Germain uu dhacayo dhamaadka bisha June. kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa waa inay suurtagal tahay inay bartilmaameed koowaad ka dhigato xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho. naadiga Premier League ka dhisan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay iibsato dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia waxaana laga iibsan karaa ninka waa Mike Ashley inay si aad ugu firfircoon yihiin suuqa kala iibsiga soo socda haddii heshiis uu dhacayo waxaana sida laga soo xigtay Mundo Deportivo Coutinho loo aqoonsaday bartilmaameedka koowaad ee kooxda Newcastle United. mustaqbalka xidiga heerka caalamiga dalka Brazil ayaa hadda ah mid aad iyo aad loo hadalhayo maadaama Barcelona lagu soo waramayo inay isha ku haysay inay marka la soo wareegto xidigeedii hore kooxda Barcelona haatan ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr. Coutinho ayaa haatan amaah uga ciyaara kooxda Bayern Munich laakiin kooxda haysata horyaalka Jarmalka ayaa la rumaysan yahay inay ka fiirsanayso in kubad sameeyaha heshiis joogto ah la saxiixato inta lagu gujiro suuqa xagaagan. kooxaha kale Chelsea, Manchester United, Everton ayaa sidoo kale muujinaya xiise ay u qabaan 27 jirkaan kaasoo ku biiray Barcelona kadib markuu lacag fara badan u dhaaqay Liverpool bishii Janaayo ee 2018. Newcastle United ayaa sidoo kale lagu soo warinaya inay la xiriirtay Napoli si ay uga hadlaan suurtagalnimada ay ku heli karayaan daafaca dhexe kooxda Khalidou Koulibaly. xidiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City Raheem Sterling ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qof walba Sky Sports waa Sky Blues ah uu xiisi doono haliyay David Silva wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu tusaale u yahay xirfadleyda
kubadda cagta oo dhan 31 jirkan ee reer Spain ay David Silva ayaa ku dhow inuu ka tago kooxdiisa haatan ee Manchester City maadaama qandaraaskiisu dhacayo xagaaga soo aadan David Silva ayaa u soo dhaqaaqay kooxda Manchester City xagaagii 2010 isagoo kaga soo biiray naadiga reer Spain ee Valencia waxaana kala guuleystay wuxuu kagu guuleystay Sky Blues tan iyo xilligaas 4 jeer oo horyaalka Premier League ah FA Cup oo 2 jeer ah Carabao Cup oo 5 jeer ah iyo koobka FA Community Shield oo 2 jeer ah sida laga soo xigtay shabakada Sky Sports ee dalka Ingiriiska xidiga reer England ee Raheem Sterling ayaa wareysi u bixiyay waxa uu sheegay hal erin ee aan xaqiiqdi ka bartay David Silva ayaa ah sida aan ku noqon karno qunyar socod waxa waa ciyaaryahanka ugu daacadsan ee aad weliga arki doontid waa ciyaaryahanka ugu daacadsan ee aan weligay arkay markii loo fiiriyo abaalmarinada iyo tartamada uu ku guuleystay xirfadiisa kubadda cagta waa tusaale fiican uma ahan kaliya sidoo kale waa sida loo noqdo ciyaaryahan weyn laakiin sidoo kale sida loo noqdo laacib aad u fiican ee ku guuleystay koobo badan aad ayaan ugu xiisi doonaa sababtoo ah wuxuuna siiyay farxad badan laakiin haddaad rabto inaad sidaas kala samayso waa inaad had iyo jeer ilaaliso qunyar socod qunyar socod nidaamsan oo aad kubadda cagta kuga guuleysan karto koobo